waxaana wanaagsan daawadayaal halkani waa runta wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona isimada Puntland oo xal u raadinaya khilaafka reer Diyaano iyo dani xukuumadda Soomaaliya oo dib u fasaxday isticmaalka UN ee terminalka garoonka aadan cadde midowga musharaxiinta oo laba garab u kala qaybsamay sababtu maxay tahay waqtiga kan kala qaybsanaanta soo kala dhax gashay midowga musharaxiinta maxay gobolka iyo caalamka uga dhigan tahay siideenta Abiy ee mucaaradka Itoobiya ayaan daawadayaal warkeen idinkugu soo gudbin doonaa iyo wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka haddaba daawade haddii aad janaalkeena runta wararka ku cusub tahay subscribe noo saar janaal sidoo kale wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee warkeena khilaaf xoogan ayaa waqtiga kan soo kala dhaxgalay midowga musharaxiinta iyadoona laba garab ee waqtiga ka ay u kala jabeen Mahad Fiqi ayaa sabab u noqday taageerayaasha midowga musharaxiinta in ay u kala jabaan laba garab kadib markii si cad ay u beegsadeen musharax ka mid ah midowga musharaxiinta loolanka isqabqabsiga ka dhax qarxay taageerayaasha midowga musharaxiinta ayaa waxaa sabab u ah markii uu hadal meel ka dhac ah uu kula kaceen labadaasi siyaasi ee saameynta ku dhex leh midowga musharaxiinta daaharaadyadii lagu waday in la qabto 13 bishan ee lagu garab istaagay ra'iisul wasaare Roble ayaa qarka u saaran inuu baaqdo ama uu hoos u dhac uu ku yimaado kadib weerarkii isdifaacida ahaa ee labadaasi siyaasi ay ku qaadeen musharaxiinta ugu saameynta badan midowga musharaxiinta mudaharaadyada oo markii hore loo arkayay mid ku dhisan hadaf guud ayaa hadda loo arkaa mid beeleed in uu difaacayo taasi oo noqonayso mid saameyn badan waqtiga kan uu ku yeelanayo musharax Xasan Cali Kheyre iyo sidoo kale musharax Shariif Sheekh Axmed ayay weerareen labadani shakhsi iyadoona taasi u muuqanayso in dib u dhac weyn uu ku keenayo mudaharaadyada lagu taageerayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble midowga musharaxiinta qaarkood ayaa siyaabo kala duwan ugu kala hadlay hadallo dhawaan ay baraha bulshada ay soo dhigeen Mahad iyo sidoo kale Axmed Macalin Fiqi kuwa oo si cad u weeraray Xasan Cali Kheyre iyo sidoo kale Shariif Sheekh Axmed waxaana taasi u muuqanaysaa in khilaafka hadda mar kale ka dhex qarxay midowga musharaxiinta inay laba garab ay u kala qaybsameen waxaana labadaasi garab ay noqon karaan kuwa saameyn badan ku yeelanaya isku tiirsanaanta midowga musharaxiinta dhanka kalena kulamo lagu xalinayo ilmo Diyaano iyo dani ayaa waxa wali ay ka soconayaan magaalada Boosaaso kulamo ku saabsan arinta BSF-ta Puntland oo lagu xalinayo khilaafka dagaal ee ka soconaya magaalada Boosaaso ayaa wali magaaladaasi ka soconaya kulamo ku saabsan xal u helida arinta BSF-ta iyo xukuumadda ayaa wali ka socda magaalada Boosaaso qoraal ay isbada Puntland iyo mas'uuliyiintii hore ee Boosaaso ay ka soo saareen ayaa waxay si cad u sheegeen inay ku dadaalayaan sidii gabi ahaanba loo joojin lahaa gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiiro ka tirsan maamulka Puntland ayaa sidoo kale ku sugan magaalada Boosaaso kulamada ayaa waxay socdaan muddo ku dhow toddobaad haddana wali warbixin lagama soo saarin go'aamada kaba dambaysta ah ee soo saareen BSF-ta Puntland iyo sidoo kale ciidamada Puntland ayaa horay dagaalo xoogan ugu galay magaalada Boosaaso cabsi xoogan ayaana ka jirto magaalada Boosaaso Cabdiweli Maxamed Cali Gaas Cabdiraxmaan Faroole Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa dhammaantoodba wada sidii Maxamuud Diyaano loogu qancin lahaa inuu gebi ahaanba xilka uu ka dego hase ahaatee Maxamuud Diyaano ayaa kasoo horjeeda hadalada iyo sidoo kale go'aamada ay soo saarayaan isimada iyo madaxdii hore ee maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa hore waxa uu sheegay in go'aanka ugu dambeeya ee maamulkiisa isaga uu leeyahay waxaana sidoo kale laga cabsi qabaa in dagaal mar kale uu wajiki ah uu ku dhaxmaro hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale agaasimaha hay'adda nabad sugidda Puntland maalmihii ugu dambeeyay magaalada Boosaaso cabsi xoogan ayaa ka jirtay iyadoona ganacsiga guud ee magaaladaasi uu hakad ku jiray haddana saraakiisha ammaanka ee deegaanada Puntland ayaa waxay horay gacanta ugu dhigeen dhalinyaro fara badan oo la sheegay inay doonayaan inay ku biiraan ciidamada BSF-ta Puntland waxaa hadda ka jira ayaa eedeynta ugu xoogan dusha laga saaraya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo maadaama uu taageerayo sargaalka ugu sareeya ciidamada BSF-ta Puntland
walow maalmihii ugu dambeeyay ay dadka shacabka ee barakacyo kala duwan ay ka wadeen magaalada Boosaaso haddana waxaa isimada Puntland ay wadaan waawaantii ugu dambeysay oo lagu xalinayo khilaafka xoogan ee hadda ka dhex taagan Siciid Dani iyo sidoo kale Maxamuud Diyaano. Ilmo reer Diyaano ayaa horey waxay u tilmaameen in marnaba walaalkood xilka aan laga qaadi karin. Dhinaca kale xukuumadda Soomaaliya ayaa dib u fasaxday isticmaalka UN-ka ee terminalka garoonka Aadan Cadde. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka noqotay go'aankii ay horey uga xirtay terminalka gaar ahaan Mafcon ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, isla markaana ay adeegsadaan hay'adaha qaramada midoobay, ciidamada Amisom iyo safaaradaha reer galbeedka sida ay sheegayaan wararka haatan ka soo baxaya garoonka Aadan Cadde. Wasiirka amniga gudaha Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa soo saaray amar dib loogu fasaxayo isticmaalka terminalka, kaasi oo sheegay inay fuliyaan hay-adaha shaqada kule. Sidii ogaatay warbaahinta Rajo Qaran, arrintaani ayaa waxay timid kadib wadahadalo dhexmaray wasiirka amniga iyo diblomaasiyiin ku sugan xerada Xalane ee ka wada hadlay xayiraada lagu soo rogay qaramada midoobay iyo Amisom. Amarkaani lagu xiray terminalka waxaa horey u soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo shaacisay in dhowr sababood loo xiray Mafcon oo ay ka mid tahay in adeegsiga rakaab ee aanan ahayn qaramada midoobay Amisom, taasina ay jebinayso hanaanka socdaalka sharciga. Waraaqada ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in marar badan ay dhacday in duulimaadyada qaramada midoobay ay soo caga dhigtaan garoonka iyagoona aan ka hor waaxda socdaalka u soo gudbin dukumiintiyadooda rasmiga ah. Go'aankani ay dib u fasaxday xukuumadda Rooble isticmaalka terminalka gaar ahaan Mafcon ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah lagu guda jiro, isla markaana khilaaf hor leh uu ka dhashay tallaabadii uu qaaday Rooble ee ku aadan dib u celinta lacagta lagu wareejiyay Imaaraadka Carabta. Si kastaba, wasiirka arrimaha dibadda ayaa horey u soo saaray, iyadoona hadda uu wasiirka amniga uu go'aankani uu soo saaray. Labada wasiir ayaa saaxiibo la kala ah Farmaajo iyo Rooble. Tanina waxay u muuqanaysaa in xaaladda siyaasadeed ee waqtigan dalka uu ku jiro mar kale cirka ay sii geli karto, walow madaxda maamul goboleedyadana ay horey u tilmaameen in wax waliba la xalin doono. Khilaafka Farmaajo iyo Rooble ayaana waxa uu yahay mid wejiyo cusub yeelanaya. Madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa xilligaani waxaa u dhexeeya khilaaf saameyn ku yeeshay doorashada iyo amniga guud ee dalka. Dhanka kalena daawadayaal, weli waxaa taagan xiisada ka jirta qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne, xilli magaalada Beledweyne cabsi xoogan ay bulshada ay ku haysato. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan ayaa mar kale ku celiyay in magaalada ay awood u leeyihiin inay soo galaan ciidamo isaga ka amar qaata, isla markaana ay taasi ay marnaba u dulqaadan doonin dhibaato kasta oo waqtigan ka jirta magaalada Beledweyne. Jenaraal Xuud ayaana eedeyn xoogan uu u jeediyay, isagoona sheegay in Jenaraal Xuud xadgudubyo fara badan uu ka sameeyay qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne. Dadka shacabka ah ayaa cabsi xoogan muujinaya, iyagoona ka baqdin qaba in xaafado ka mid ah magaalada Beledweyne dagaalo toos ah ay ka dhacaan. Dadka ayaana il gaar ah ku haya wax waliba iyo sida ay noqon karaan. Go'aamada ka soo baxaya ayaa waxay u muuqanayaan Cali Jeyti iyo sidoo kale Xuud kuwa halis gelinaya amniga iyo ganacsiga qeybihiisa kala duwan. Dhanka kalena, Itoobiya sii deynta ay sii deysay siyaasiyiinta mucaaradka ayaa waxaa si gaar ah u soo dhaweeyay wadamo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin Midowga Afrika iyo sidoo kale Uganda, Kenya. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa jimcihii sii daayay siyaasiyiinta mucaaradka sida Zivo Nakia oo ah maskaxdii iyo sidoo kale aasaaskii TPLF iyo walaashiisa Kezon Nyanga oo xubin kale oo ururkaasi ka mid ah. Waxaana la sheegayaa in Abiy Ahmed go'aankani uu qaatay uu noqonayo mid aad u soo dhaweynayaan qaybaha kala duwan ee wadamada caalamka. Zimbabwe iyo sidoo kale wadamo kale ay ku jiraan Uganda ayaa horey waxay u sheegeen inay aad u soo dhaweynayaan go'aankani uu qaatay. Waxaa kaloo dadka la sii daayay ka mid ah hogaamiyaha Oromada sida Jawara Maxamed iyo sidoo kale saraakiil kale oo ka tirsan jabhadaha kala duwan ee ka jira wadankaasi Itoobiya oo la xiray sanadkii 2020. dhalinyaro fara badan oo u dhashay wadankaasi ayaana si gaar ah uga kala hadlay xaaladaha kala duwan ee waqtiga kan jira.
guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen runta wararka daawadayaal waa naga inta ay channelkeena subscribe noo saar wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala waad mahadsantihiin daawadayaal.